kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya madaxweyne Farmaajo oo diyaariyay ciidan gaar ah oo ka hortaga qalalaasaha mucaaradka ay wadaan Roble oo dhigaha ka fureysay calaalka midowga mucaaradka Soomaaliya sansana wanaagsaneyn oo ka muuqata siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo wararkii ugu dambeeyay xaalka Muqdisho iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaan ku eegi doonaa warkeena qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegaynaa warkeena balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku bilaabnay madaxweyne Farmaajo ayaa diyaariyay ciidan gaar ah oo ka hortagaya qalalaasaha mucaaradka ay wadaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saacadihii ugu dambeeyay villa Soomaaliya kulan kula qaatay taliyaasha booliiska nabad sugidda iyo sidoo kale militariga isagoo kala hadlay qalalaasaha ka taagan caasimadan iyo sansaan dagaal ee mucaaradka ay wadaan madaxweyne Farmaajo ayaa amray in la diyaariyo ciidamada gaarka ah ee tababarka qaba isla markaana ka hortaga rabshadaha iyo banaanbaxyada iyo weerarada ka dhaca magaalooyinka waxaa hadda la geliyay ilaa 2,000 oo ciidan ah ayaa heegan ku jira kuwaas oo hadda diyaar u ah difaaca caasimadda Muqdisho iyo ka hortaga qalalaasaha ciidamada mucaaradka ay wadaan haramcad gorgor iyo duufaan ayaa la geeyay jid walba oo Muqdisho ah maanta sidoo kale waxaa heegan buuxa ku jira ciidamada kale ee gaarka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo u taagan ka hortaga rabshadaha iyo qalalaasaha mucaaradka ay horinayaan madaxweyne Farmaajo ayaa ku amray dhammaan ciidamada in heegan buuxa ay ku jiraan maadaama xilli kasta la filan karo dagaal Muqdisho ay ka ridaan xoogga hubeysan ee mucaaradka waxa uu ku amray ciidamada in ay toogtaan askari walba oo mucaaradka taabacsan oo dagaal ka rida caasimadda kiiso dhiibanaya si nabadgelyo ah ugu wareejiyaan hay'adaha amniga si loo maxkamadeeyo sharciga uu maro arrintan ayaa mar kale muujinaysa xaaladda guud ee Soomaaliya iyadoo mucaaradkan ay ku adkeysanayaan in dagaal mooye xal kale uusan jirin oo ku aadan doorashooyinka dalka Soomaaliya isla markaana hadda waxay wadaan qabanqaabada iyo qorshihii ugu dambeeyay ee dagaal lagu halcinayo gudaha magaalada Muqdisho iyagoo adeegsanaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka si yeeshee qaab qabiil ahaan ay ugu wacdeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa yiri maaha wax la aqbali karo malaha wax suuroobaysa in Soomaaliya xilligan ay dowlad kala yeelato oo mucaaradka ay rabaan waa in laga hortagaa qorshaha mucaaradka waa in la difaaca dalkan iyo qadiyadiisa waa in laga hortagaa shay kalkaalka naas nuujinaya shayaha duminaya Soomaaliya iyo dowladnimadeeda sidaas ayaa laga soo xigtay Farmaajo kulankii uu la qaatay xalay saraakiisha ciidamada kala duwan ee dalkeena sida booliiska militariga iyo asluubta magaalada Muqdisho xaalkeedu maanta uu kacsan yahay sansaan dagaal ayaa muuqanaysa oo ku aadan in xilli kasta caasimadan ay soo geli karaan ciidamada mucaaradka sidoo kale waxaa baaritaan lagu bilaabayaa guryaha mucaaradka ka degan yihiin magaalada Muqdisho si loo xaqiijiyo amniga caasimadan loogana hortago dhaqaaqa iyo baruursiga ay wadaan mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ayaa dhigaha ka fureysay calaalka midowga mucaaradka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku amray guddiga doorashooyinka heerarkooda kala duwan in si toos ah ay u guda galaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo aysan jirin wax doorasho ah oo la joojinayo taas oo ka dhigan in Roble mucaaradkii dhigaha uu ka fureysay kana diiday go'aankoodii ahaa in la hakiyo doorashooyinka dalka ilaa xal midaysan laga gaarayo asiyeeshee ra'iisul wasaaraha ayaa ku adkeysanaya in aysan jirin cid kale oo doorashada dhibaato ku ah marka laga reebo shakhsiyaad kooban oo mucaaradka ah oo doonaya danahooda gaarka ah isagoona ku amray guddiyada doorashooyinka inay guda galaan doorashadooda dalkana laga samta bixiyo marxaladan hubanti la'aanta ah ee lugaha uu kula jiro hadalka Roble kadib ayaa waxaa la shaaciyay dhawaan in la qabanayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in dhawaan Muqdisho laga bilaabi doono doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliya ku matalaya heer federaal waxaana sidoo kale arrintan ay muujinaysaa in Maxamed Xuseen Roble uusan daneynin in xilligan uu hadalkooda qaabilo mucaaradka oo qaarkood ay u muuqdaan kuwa raba in dagaal iyo colaad sokeeye dalkan uu ka holco sidoo kale mucaaradka dhexdooda ayaa xitaa ayaga ka dhex bilaabatay oo ay kala fikir duwan yihiin hanaanka loo wajahayo doorashooyinka Soomaaliya iyo qaabka loo mucaaradayo dowladda federaalka Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegay in ay ka soo horjeedaan qorshe kale oo la doonayo in lagu marhaabayo doorashooyinka Soomaaliya dagaalna dalkan lagu geliyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud Cabdixakiin Shakuur iyo xubno kale oo mucaaradka ah ayaa qaba in la dagaalamo oo laga hortago doorashooyinka hadda soconaya xaalka Soomaaliya ma qumana waxaan wanaagsanayn ayaa ka soo yeeraya mucaaradka dhiilo colaadeed ayaa muuqanaysa inkastoo dowladda federaalka ah diyaar garow weyn ay ugu jirto in mar kale mucaaradka ay qabsadaan xaafado ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho sansana wanaagsanayn ayaa ka muuqata siyaasadda Soomaaliya waa lagu sii kala fogaanaya arrimaha doorashooyinka ee dalkan khilaaf weyn ayaana ka taagan hanaanka loo marayo doorashada Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhammaan qodobadii mucaaradka ay soo jeediyeen ka qaatay hal qodob oo ahaa in ay isu yimaadaan golaha wadatashiga qaran oo laga xaajoodo hanaanka doorashooyinka iyo qeeldaan taagan balse waxa uu ka diiday Roble mucaaradka in la joojiyo doorashooyinka ama la hakiyo taas oo aan suuro gelin doorashadiina hadda sida u bilaabanayso xilli bil Soomaaliya ay hoggaanka u hayso dhammaan kuraasi kala duwan hadda lagu doortay Muqdisho Baydhabo iyo Dhuusamareeb doorashada Soomaaliya sanadkan waxa ka taagan jahwareer weyn mucaaradkii waa ay qaladaaminayaan gudidii doorashooyinkii dowlad goboleedyada shaqadooda ay wataan xaalku waa allow sahal xilli walbana Muqdisho waxa ka holci kara dagaal balse arrintan waxa ka feejigan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo luuq walba iyo jid kasta oo magaalada Muqdisho ah maanta si weyn loogu arkayo sidoo kale waxa dhawaan bilaabanaya howlgal weyn oo lagu xaqiijinayo amniga caasimadan kaas oo horkacayo taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole waxaa la sheegay in howlgalkan ujeedkiisu yahay in laga hortago qorshaha guracan ee mucaaradka ay wadaan iyo saansaanta aan wanaagsanayn ee laga dareemayo guryaha mucaaradka ka degan yihiin gudaha magaalada Muqdisho ciidamo fara badan oo mucaarad ah ayaa hadda soo buux dhaafiyay dowladka Muqdisho sidoo xogaha leelay ay muujinayaan balse ma heesaan jaanis ay ku soo gali karaan gudaha caasimadda oo waxa uu taagan ciidamo kale oo ka amar qaadanaya si toos ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba daawade xaalka Muqdisho iyo si guud Soomaaliya ay kula muuqato fikirkaaga ku reeb qaybta hoose ee commentiska tan iyo kulan dambe nabadgelyo.